السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorsadani Academic English Writing. maanta waxaan bilaabaynaa modulka saddexaad oo ku saabsan sentence types and structure. modulkii koowaad wuxuu ahaa introduction caadi ah. waxaan kaga soo hadalnay Academic English Writing muxuu yahay, muxuu uga duwan yahay other types of English iyo siyaabaha Englishka qoraalka dhinaca qoraalka aynu iskaga dhisi karno. modulkii labaad waxaan kaga soo hadalnay punctuation and capitalization noocyadiisa kala duwan iyo rules iyo regulation kala xiriira. modulka saddexaad waxaan kaga hadli doonaa sentence types and structure, noocyada jumladaha Englishka iyo mid walba structureka iyo qaabka loo dhiso iyo qaab dhismeedkeeda. so marka insha Allah waxaan bilaabaynaa qaybtii koowaad. طبعا markii laga hadlaayo ishag muxuu ahaa a sentence jumlada waa eray ama erayo micno sameynayo. so marka Englishka markii jumlad la qoraayo waxa base u ah eray word. so marka erayada Englishka marka noocyo badan ay leeyihiin foundations words waxa la ayaa jira. so marka foundation words oo ah jumlada sideedaba horta eraya ka kooban tahay. erayada ay jumlada ka kooban tahay waxay noqon karaan nouns, waxay noqon karaan verbs, waxay noqon karaan adjectives, waxay noqon karaan conjunctions. waa parts of speech kii aad garanayseen in English. so now ayagii ayaan muraajaceynaa si quick طبعا saad la socotaan koorsadan ma aha koorso ardayga lagu barayo what is noun, what is verb, what is adjective. koorsadan waa academic English writing. so marka wili uma dhaadhicin nuxurka koorsada oo ah how to write academic English writing. laakiin waxaan wadnaa hordhac oo muhiim ah, waxaan wadnaa foundation oo muhiim ah. la-aantoodana aysan ba academic English writing ba shaqeyn karin. ardayga haduusan garanaynin punctuation marks, capitalization marks, basic foundation words in English, nouns, verbs, adjectives, and what they do, we cannot speak of that. so marka that is why aan muraajaceynayna. we are just reviewing them very quickly so that aan u xasuusano amaba aan isxasuusino what we already know. now a noun marka waa maxay a noun? a noun is a word that identifies a person, place or thing. horad u taqaanaan. so marka nounka waa eray identify garana shakhsi, place amaba thing. there are three types of nouns: concrete, proper and abstract. and a noun substitute ama waxa loo yaqaano pronoun. so marka nounska waxay u qaybsamaan afartan nooc. three types three types. concrete waa maxay concrete? things you can see or touch. waxyaabaha aad arki karto amaba aad taaban karto. table waa concrete noun. mobile phone waa concrete noun. ilan waa waxaad arki karto aadna taaban karto. proper noun waa maxay? specific people, places or things noun. waa waxyaabaha magacaabaya dad gaar ah: cali, maxamed, jaamac, places, muqdisho, soomaaliya. things waxyaabo oo gaar ah. مثلا for example dalajirka dahsoon waa magac soo maha, waa thing waxa uu tilmaamay soo maha. so marka waxaas oo dhan marka waxa weeye waa proper nouns. abstract nouns ayaa jiraan oo ka tarjumayo emotions iyo feelings ayay ka tarjumayaan. emotions and feelings ayay ka tarjumayaan. for example love, love for example. ereyga love waa maxay? waa abstract noun. waa maxaa abstract ah? because emotion ayuu ka tarjumaya, caadifad ayuu ka tarjumaya. wax la taaban kara ma aha. waa opposite to concrete. opposite wuxuu ku yahay concrete. concrete waxaad arki karto taaban karta waa sida tableka oo kaleeto, desk, bed. waad taaban kartaa waana arki kartaa. laakiin love, hate, jecel iyo nacayb midnaba ma arki kartid, but you can feel it. waad dareemi kartaa. jaceylka qofka ku qabo waad dareemi kartaa. adiga ayaa jecel dareemi kara, and so on and so forth. sidoo kale waxaa jirta wax loo yaqaano substitute noun amaba pronoun oo ah nounka booskiisii wixii bedeli lahaa haddii nounka la waayo, oo ah a noun substitute wax loo yaqaano amaba pronouns-kii aad taqaanaan: it, he, she, they, we and so on. haddaba aynu eegno marka weli waxaan ku jirnaa foundation words. verbska aynu eegno. waa maxay a verb? a verb is a doing word and can either be classified as an action verb, linking verb and a helping verb. afcaasha waa wax tarjuma, wax ka hadlaayo, wax sameys, doing. waxaana loo qeybiyaa action, linking iyo helping. action verbska waxay ka tarjumayaan wax qabasho, action wax la qabtay oo actually sida run waa wax qofka uu qabanayo inuu qofku cararo, cry, kick the ball for example, sing, dance. these are action verbs. action verbs ayaa loo yaqaanaa.
laanno waa wax actually qofka uu sameynayo oo action ka tarjumaya waxaa jira waxa loo yaqaano linking verbs yeah verbs loo isticmaalo to link you know is are was were yeah status of being you know I am they are you know artas waxa weeye waa linking verbs wax loo yaqaano sidoo kale waxa soo hosgalayo you know Allahumma salli ala sayyidina Muhammad you know appear become feel get grow look seem smell sound taste yani kuwaas waxa waa linking verbs ayaa la yiraahdaa sidoo kale waxa jirta wax loo yaqaano helping verbs oo aad naqaano you know may might should must will would do does and so on markaan ka tagno verbska waxa jira waxa loo yaqaano descriptive words oo ah adjectiveski oo ah you know describe nouns or pronouns waa erayo sifeynaya magacyaal ama magac u yaalayaal ama pronouns for example old blue old car blue dress laptop computer you know she is smart they are late yeah waa adjectives old car old waa adjective waa eray sifeynaya gaariga yeah gaari qadiimi ah ama old ah samaha she is smart smart waa eray adjective ah wuxuu sifeynaya pronounkii sidoo kale waxa jirta waxa loo yaqaano descriptive words kii aan ku jirnaa weli adverbs ayaa jira waxa loo yaqaano adverbs ka they describe verbs yeah ama actions ay describe gareynayaan yeah for example think carefully yeah fikir si taxadir ku jiro carefully marka waa adverb sataqaanaan yeah sleep late late waa adverb because wuxuu sifeynaya ficilka oo ah sleep yeah jump high high waa adverb wuxuu sifeynaya ficilka oo ah jump sidoo kale adverbs can also describe adjectives and other adverbs adverbs sidoo kale waxay sifeyn karaan adjectives ay sifeyn karaan you know sidoo kale iyo other adverbs kale sifeyn karaan for example really pretty really pretty really pretty iyo very gracefully so marka ii sheeg muxuu ahaa really pretty waa adjective really waa adverb so marka adverb halkan wuxuu sifeynayaa adjective uu sifeynayaa you know yani waa yani runtii waa wax qurux badan pretty waa taban waa shay quruxda leh very gracefully hadad fiirisan halkan very gracefully very waa adverb gracefully waa adverb kale so marka waa adverb sifeynaya another adverb so marka halkan waxaan ka fahmaynaa adverbska inuu sifeyn karo verb adjective iyo sidoo kale another adverb laakiin adverb ma sifeynayo noun oo nounka waxaa sifeynaya adjective saan hore usoo baranay sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaano prepositions and conjunctions oo loo yaqaano connecting words kuwii hadda anaga waxaan ka soo hadlaynaa foundation words kan ka soo hadlaynaa samaha you know now waxaan eegaynaa for example foundation words waxay kala ahaayeen noun iyo verb waa ereyada foundationka luqadda Englishka yeah foundation words waa ereyada kale ay ka farcamaan oo adjective-ku ka farcamo iyo adverb-ku uu ka farcamo waa ereyada asaaska ah waa ficilka iyo isimka noun and verb waxaan ka soo hadalnay ereyada wax sifeeyo waxay kala ahaayeen adverbs iyo adjectives they are descriptive words waxaynu eegaynaa ereyada loo bixiyay connecting words ereyada wax isku xira waxa loo yaqaan groupka waxa soo hoosgalayo prepositions and conjunctions waxa loo yaqaan prepositionadii maxaa kamid ah at by for in on to with yeah so you know and conjunctions sida and but or so after because they are used to connect the other building blocks of language yeah so for example your wallet is on the table yeah boorsadaada yareed ee lacagaha waxay saaran tahay on the table miiska ay saaran tahay on waa preposition oo waxay tusinaysaa position meesha uu saaran yahay on in iyo at طبعا waad wada taqaanaan mid walba sida loo isticmaalayo you know at waxaa loo isticmaalaa always placeka ama ba you know waqtiga yeah at 10 o'clock you know at the airport you know yeah for example you know on waa shay markuu wax saaran yahay in shay markuu wax ku jiro طبعا waxaan rajeynayaa inaad basics of prepositions aad taqaanaan sidoo kale waxaa jira conjunctions kii oo ah and but or so after and because so marka conjunctions you know for example Omar will make tea and Hafsa will bake the cake yeah so marka
and waxa loo isticmaalaa yani markii laba shay ama laba qof ama laba ficil laga hadlayo samaha. These words are used for connecting. They are usually followed by other words. eradan waxa loo isticmaalaa in ay isku xiraan qaybaha kala duwan ee jumladda, mar walbana waxaa yimaada gadaashooda a word inta badan amaba erayo. ugu dambeyd waxaa jiro waxa loo yaqaano prepositional phrase, waxa loo yaqaano ayaa jiro. waa maxay prepositional phrase? A prepositional phrase always begins with a preposition and it usually ends with a noun. Prepositional phrase wuxuu ku bilaawdaa preposition sida on, at, in, wuxuuna ku dhamaadaa noun. For example, your wallet is on the table. On waa preposition, the table na waa noun. So marka on the table waxaa la isku yiraahdaa prepositional phrase ayaa la isku yiraahdaa. maxaa phrase loogu bixiyay? ilaan erayo ayuu ka kooban yahay, hal eray kama koobna. markuu on kaligii yahay waa preposition. It kaligi aan dhaho in waa preposition. For waa preposition. Laakiin in the house waa prepositional phrase. On the table waa prepositional phrase. phrase طبعا inta badan markii laga hadlayo phrase طبعا waa group of words. So marka on the table, in the house, at at the airport waa prepositional phrase, waxa loo yaqaano in English grammar. haddaba aynu kusoo koobno marka cashirkii waa maxay jumlad. What is a sentence? طبعا qaybaha xiga waxaan kaga hadli doonaa types of sentences iyo mid walba structure-ka loo sameeyo. laakiin intaan u gudbintaa haddaba aynu define garayno waxa loo yaqaano ishag muxuu ahaa sentence. طبعا definition badan ayaa jira, laakiin ninkan loo yaqaano BC Das wuxuu ku define gareeyay sentence buugiisii Applied English Grammar and Composition. Sentence wuxuu leeyahay is a single word amaba group of words that has meaning and makes complete sense. wuxuu noqon karaa jumladu leeyahay eray ama group eray ah oo macno dhameystiran bixinayo. He further states that there are two types of senses. senseska ma macnaha laba nooc buu leeyahay. mid waa grammatical, midna waa context ayuu u kala bixiyey. sidoo kale a sentence is said to have grammatical sense when it follows the rules of grammar and context sense when it is subjected to shared meanings. marka goormeen dhahayna jumladda waxay leedahay grammatical sense, goormeen dhahayna jumladda waxay leedahay context sense. wuxuu leeyahay ninka jumladda waxay lahaanaysaa grammatical sense markii ruleski grammarka ay raacdo, verb, subject, object and so on. ruleski markay raacdo. I am a teacher, she is driving. These are sentences or grammatical sense sameynayo because they are following the rules. laakiin wuxuu leeyahay context sense goormeen dhahayna when it is subjected to shared meanings, markii ereygaas ama jumladahaas micnaheeda uu ku xiran yahay shared meaning, micno dad ka dhaxeeya. markii uu ishag muxuu ahaa ishag uu ka dhaxeeyo uu la xiriira yani. so marka taas micnaheedu marka waxa weeye jumladda waxaa laga yaabaa inaysan grammatically sax ahayn, laakiin dadka wada hadlay agtooda ay micno ka samaynayso because waa waxay isla fahmayaan, inkastoo ay grammatically aysan sax ahayn. so marka sidoo kale wuxuu leeyahay sentences can be formed as a single word. wuxuu leeyahay sidoo kale erayada hal waxaa loo sameyn karaa as a single word, hal eray ahaan single word, amaba multi words erayo oo aan single ahayn oo 2 iyo 3 wixii ka badan ah. sidoo kale wuxuu leeyahay multi wordska waxay noqon karaan kuwa verbless ah iyo kuwa verb. aan eegno marka shaxdan waxaan dhehnaa formation of a sentence. sentenceka wuxuu noqon karaa single word iyo multi words aan usoo sheegnay. single word sentence, for example, yes, no, certainly, absolutely, perfectly, etc. waa erayo single ah laakiin jumlad noqon kara. for example, are you ready ayaa qofku yidhi, ma diyaar baa tahay? markaasa waxaa tiri yes. yani yes taas waa jumlad dhameystiran. maxay ku noqotay? because waxay u taagan tahay yes I am ready. yani qofku wuu ku fahmaya soo maha, waana jumlad laakiin waa hal eray soo maha. مثلا waxaa tiri will you attend my wedding ceremony? ma imaanaysaa xafladda arooskeyga? markaasuu wuxuu kugu jawaabay certainly, yani hubaal. marka certainly I will be there waa soo maha micnaheeda. so marka erayada
kaligooda marka macno ay sameynayaan so marka jumladaha marka waxay noqon karaan hal eray sida halkan inoogu muuqdo sidoo kale multi word ay ka sameysnaan karaan oo macna erayo kala duwan ay ka sameysnaan karaan okay erayada marka ayaa qaar waxay noqon karaan verbless kuwan ficil la soconin iyo with verbs kuwa ficilo la socda kuwa ficilka la'aanta maxaa kamid ah certainly not at all at 6 o'clock in the morning saddexdan waa saddex jumladood laakiin aan ficil wadanin oona jumlada ah for example do you have some money qofa ku yiri la reexo lacag ma haysaa markaas wuxuu jawaabtay not at all waa jumlad dhameystiran oo macna cad laakiin ficil kuma jiro there is no verb at all yeah for example at 6 o'clock in the morning مثلا qofa wuxuu yiri when will we meet goormaan kulmi doonaa markaas wuxuu ku yiri at 6 o'clock in the morning there is no verb at all in this sentence sidoo kale with verbs ay noqon karaan jumladaha sida for example Amal kicked the ball waa jumlad dhameystiran oo cad oo subject predicate ka kooban inta waxa inooga soo idlaaday xalqadeeni maanta inta ku kulmayno xalqad kale waxa idinka tagayaa fi amaan illah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh